anigoo ka wakiilo jalen rag iyo dumar haween iyo dhalinyaraba iyadoo igu horreeyey gudoomiyey ucud cabdixakiim waxaan idinku soo dhawaynaynaa adiga iyo xogeeyaaga arrimaha dibadda faysal dalka Norway magaalada Oslo faysal cali waraabe oo ahaa muddo dheer xusbiyada qaranka ka mid ahaa ee u soo halgamay dalka welina u taagan waxaanu aad iyo aad ugu soo dhawaynaynaa adiga xogeeyaaga maxamed aad airportka Norway waxaanu idin leenahay labadiina faysal maxamed ku soo dhawaada dalka Norway halkan waxaanu nahay jaleedii Soomaaliland oo midaysan saddexda xusbi qarab oo ka koobannahay inta halkan ku soo dhaweynaysaa waxaanu nahay jaleed isku duuban haddaan xusbiyada nahay iyo haddii si walba isugu duuban oo aan midnimadaas iyo wadajirka Soomaaliland aanu ka koobannahay xusbi walba anagoo isku duuban ayaanu anagu madaxdayda ugu soo dhaweynaa waa caado aanu leenahay oo lagu yaqaan haddaan nahay dalka Norway jaaliyada degan ee Somaliland welcome to Norway baan leeyahay mar labaad insha Allah waanaynu kulmi doonaa is arag wanaagsan iyo kulan wanaagsan oo dambana waynu yeelan doonaa waxaanu idin leenahay soo dhawaada inuu ka wakiilo waqtiga iyo xisbigooda aad baan ayaan ugu mahadnaqayaa hablaha ka tirsan wadani kulmiye ucud ee maanta halkan isugu yimid iyo dhammaanteen oo wada ah dadkii reer Somaliland jaaliyadda Somaliland oo ka wada tirsan saddexda xisbi qaran aad iyo aad baad mahadsantihiin magacaygu waa Jamiila Maxamed Warsame waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa walaaladeen Faysal iyo Maxamed waxaan leenahay Maxamed waa waxa weeyaan waxaan leenahay Norway ku soo dhawaada anagoo jaaliyadii reer Somaliland ee Oslo ah waxaan jecelahay inaan mar walba xusbiyadayada dawladayada iyo dadkayagaba aan halkan u taagnaano waxaan anigu aaminsanahay haddii aan Jamiila ahay ilaa iyo min maalintii SNM aanu bilownay inaan maxay haytooy gacan qabano oo aan kaga saaro taliskii hore ee ina dhibaateeyay waxa aan jeclaysanay inaan talis kale oo aynu ku raaxaysano aynu taagno alxamdulillah waynu ku guuleysanay waa ka maanta madaxdeena ay halka inoogu imanayaan waxa aan dadka shacabka reer Norway farayaa inay madaxdeenu inoo wada ahaato mid kaliya oo ay mar walba heegan u ahaano waayo waxa way kaasayna mideeya ilaahay waxaanu ka baryayaa in mar walba kaasi kii sareeyo uu ahaado qof kasta oo aqli iyo garaad lehina inuu calanka ku fakaro faysalna waxa weeyaan qofka Faysal soo dhaweyn waaya umarayn may madaxweyne kalena inuu soo dhaweynayo waa Faysal waa nin kacaana waa nin u kacaana Somaliland oo wadankiisa jecel oo midnimadiisa jecel inay Somaliland jirto waxaan ku leeyahay Faysal iyo Maxamed soo dhawaada walaal soo dhawaada waanad mahadsan sallallahu alayhi wasallam ilaahay ma hadla subhanahu wa ta'ala ilaahay isku keenay kala ma hadla aniyo Dr. Maxamed aad iyo aad baan ugu faraxsanahay si fiican inoo soo qaabasheen isku duubnaantaas waxa maanta loo baahan yahay gudaha iyo dibadda anu aad baan ilaa 29 baan inanayay Norway waan ogaayay markaas oo ka tilmaamantiin jaaliyadaha Yurub Somaliland waan ogaa ilaa halgankii waan ogaa door ka ciyaar jirteen waana marka waxaan u doortay inaan kaga bilowno socdaal dheer oo dhowr wadan ilaa 7 wadan oo Yurub marino oo arrimaha Somaliland u marino aan ku gooseen kaga bilowno lugta u horeysa in Norway noqoto si aanu talooyin aan uga sii qaadanayo iyo tusaalooyinba aad iyo aad baan ragga dumar u mahadsantihiin midnimadaas inuu ka midhakeyn karnaa himilada aynu doonino oo ah wadan la ixtiraafay yahay oo adduunka ka qayb gala oo nidaamkan ku lahaan jirnay 60kii ku soo celiya waxaa laga midhakeeni karaa oo gudaha dibadda inagoo ogaana inaynu wax asxaabta ka sareeya naga dhaxeeyo qaran yahay asxaabtu waa saddex laamood oo geed ka baxay isku mid ah وين جيت كلا إلى عليها جيت كادو إنجو أصحابته متشرس كان خراب أصحابته وأنا أجمع كنت أختار مع عداوة متشرتو هنا الساعة كنت جمنا تصالح ونقطة ما نشاء الله شاء الله تعالى أنت كانت تبدأ تشوف تغير سؤال معنا وأنا سنتي إلى معنا هذه أتباع غير جلسين
الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. غير نوروي aad baan idinku mahad celinaynaa sida quruxda badan ee noo soo dhaweyseen maalin qabo baraf dibadda yaallo idinka u soo baxayna nala kulantaan walaalayaal waxaa layna wada idhaahdaa si berigana salam tahayna salam baynu wadahay waddankiina ku wada horaysanay markay timaado aqoonsiga somalilan mucaarid iyo muxaafida we should be one waynan mid isku wada ahayn aad baan ugu farxay in inagoo wada dhanan halkan isugu nimi insha allahna waan isu iman doonaa talin ka wada yeelan doonaa sayn maandeeq magaceedu isu celinaa aad baan idinku mahad celinayaa